Assalaamu calaykum dhammaan daawadayaasheena qiimaha badan ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta oo aan ku soo qaadanayno sheeko kale oo taariikheed mid ka mid ah qisooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan dhismaha, burburka, iyo dib u kabashada dalkeena Soomaaliya. Waana warbixin isku xiran oo dulmar buuxa ka bixinaysa marxaladihii ugu muhiimsanaa ee qarankeena soo maray tan iyo qarnigii 20aad. Marka aan dib ugu noqono taariikhda fog, Soomaaliya waxay ahayd dhul ay ku nool yihiin bulshooyin leh dhaqan fac weyn, waxaana qarniyo badan ka jiray boqortooyooyin iyo suldaanado awood badan sida Ajuuraan, Geledi iyo Hobyo, kuwaas oo xukumi jiray dhul ballaaran, iskuna dheeli tiray ganacsiga badda cas, badweynta Hindiya, iyo xiriirka Carabta iyo Aasiya. Soomaaliya waxay ahayd marin muhiim ah oo ay maraan ganacsatadii dunida, taas oo muhiimad weyn u yeelatay dhaqaalaha iyo xiriirada dibadda. Qarnigii 19aad dabayaaqadiisa iyo bilowgii qarnigii 20aad, gumaystayaashii reer Yurub ayaa bilaabay inay ku tartamaan dhulkeena, iyagoo ugu dambayn u kala qaybiyey Ingiriis, Talyaani iyo Faransiis. Muddo dheer oo halgan, kacdoon iyo dhiig badan la huray kadib, Soomaaliya waxay ku guulaysatay inay hesho madax bannaani buuxda sanadkii 1960, taasoo ahayd iftiinka ugu horeeyey ee qarannimada casriga ah. Kadib xorriyaddii, Soomaaliya waxay bilowday dhismaha dowladnimada cusub, waxaana soo baxay rajo badan iyo hami cusub. Laakiin sannadihii xigay waxaa dhacay isbeddello siyaasadeed oo badan, ugu dambayna waxaa talada dalka qabsaday dowladdii xoogga ku timid sannadkii 1969. Muddo kadib, dalka wuxuu galay dagaallo sokeeye iyo burbur dowladnimo, taas oo keentay in shacabka badankood ay ka qaxaan guryahoodii, dalka oo dhanina uu galo qas iyo kala dambayn la'aan. Hase yeeshee, inkastoo burburkaasi uu ahaa mid culus oo taariikhda ku reebay raad weyn, haddana qaranka Soomaaliyeed weligiis ma lumin rajo, waxaana bilowday in qabaa'il, ururo bulshada ah, iyo hoggaan siyaasadeed oo cusubi ay ku dadaalaan dib u dhiska dowladnimada. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay isbeddello muhiim ah: dib u dhis dowladeed, horumar amni, kobac dhaqaale oo yar balse muuqda, iyo isku dayo lagu doonayo in dalka dib loogu soo celiyo sumcaddiisii iyo midnimadii shacabka. Soomaalidu maanta waxay ku jirtaa marxalad cusub oo masiir leh, waxaana socda qorshayaal lagu wajahayo caqabadaha amniga, dhaqaalaha, iyo horumarinta adeegyada bulshada. Inkastoo safarku dheer yahay, haddana dad badan ayaa rumaysan in Soomaaliya ay mar kale noqon karto dal xooggan oo xasiloon, maadaama bulshada Soomaaliyeed ay u taagan tahay adkaysi iyo halgan joogto ah. Ugu dambayn, taariikhda Soomaaliya waa mid murugo iyo mahad isku jirta, balse waa sheeko ka tarjumaysa awoodda shacabka, adkaysiga qaranka, iyo riyada ah in mustaqbal wanaagsan la gaari karo haddii wadajir loo shaqeeyo. Waana intaas warbixinteena maanta. Waxaan idinku mahadinayaa daawashada, waxaana idin rajaynayaa maalin wanaagsan iyo barwaaqo. Alle ha inoo fududeeyo dhammaan howlaha aan wadno. Mar kale ku soo dhowaada barnaamijyada kale ee aan idiin soo diyaarin doono. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like inoo saar, kanaalkana subscribe. Waxaan idin soo wadaa barnaamijyo xiiso badan.